in lagu hayo arrimaha galmudug cadaado maantay waxaa tagay xildhibaano dhexdhexaadina wada maxay kala kulmeen madaxdii ay halkaasi kula kulmeen qalamaadkii siyaasadeed wuxuu la soo dhaafay ka dhex jiray hay-adaha dastuuriga ee dowlad goboleedka dhexdooda inaan xalino ayaan u nimid duqa magaalada muqdisho muxuu ka yiri muuqaalka muujinaya mid ka mida gaadiidka dagaalka ee amisom oo si ula kaca u riixaya gaari kuwa rayidka barnaamijka ayaad ku maqli doontaan ra'iisul wasaaraha Ciraaq ayaa waxa uu dalbaday in la baabi'iyo natiijada aftida madax bannaanida gobolka Kurdiyiinta Ciraaq gudniinka hablaha ee dalka Finland oo daraasad laga soo saaray hablaha Sacuudiga siday u arkaan xayiraadda gawaarida ee laga qaaday ee haatan loo ogolaaday inay wadi karaan ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka oo ay soo saartay Naciime Maxamuud anigoo aadan saalaminana idin soo jeedinayo dunida iyo maanta walaalkii wada cunugiisa oo wadan kala geeyo ama wadankii gudihiisa ku gudo waa dambi maxkamadan ka iman karto barnaamijka waxaa isku soo dibaraday Naciime Maxamuud halkaad ka dhageysanaysaan waa London marka hore ku soo dhawaada wararka BBC-da iyo maxamed cabdi waa Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad mahadsanid saalimin ra'iisul wasaaraha waddanka Ciraaq Haydar al-Abadi ayaa waxa uu codsaday in wax kama soo qaad la'aan laga dhigo aftidii madax bannaanida ee Kurdiyiintu ay deegaankooda ku sameeyeen isagoo la hadlay baarlamaanka magaalada Baghdad Haydar al-Abadi waxa uu ku celceliyay dawladda dhexe marnaba inaanay ka hadli doonin go'aanada doorashooyinkii ama aftidii dhacday maalintii Isniintii waxa uu sheegay go'aanka halkaa ka soo baxa inaanu noqon doonin mid la filayo gobolkaasi inuu xorriyad ku qaato hore Kurdiyiinta madaxdooda ayaa waxa ay sheegeen Baghdad inay wadahadal la geli doonaan si arrimaha loo soo qaado ra'iisul wasaarihii hore ee waddanka Thailand Yingluck Shinawatra ayaa la xukumay waxaana lagu xukumay 5 sannadood oo xabsiya arrin ay ku lahayd oo la leeyahay lacag dulsaara ayaa la duldhigay sicirka bariiska dalka oo ay dawladdii ay haysatay soo rogtay Yingluck ma ay joogin maxkamadda markii dacwadaasi lagu qaadayay waxaana la sheegay bishii in soo dhaaftay inay ka baxsatay dalka Thailand iyadoo waqtigaasi aan lagu dhawaaqin go'aanadan waxaa loo malaynayaa inay u baxsatay dhinaca Dubai oo ay joogto guriga walaalkeed Thaksin Shinawatra oo mar ra'iisul wasaare dalka ka ahaan jiray iminkana dibadda kaga nool Canada iyo dalkan Britain ayaa si weyn uga gilgishay go'aan Maraykanku ay gaadheen oo ah cashuur dheeraada in lagu soo rogo oo gaaraysa 200% dayuurado laga soo iibiyo waddankaasi waqooyiga Ireland oo sharikadana Canada ay leedahay sharikadaas oo lagu magacaabo Bombardier wasaaradda ganacsiga ee waddanka Maraykanka ayaa waxa ay sheegtay inaanay xaq ahayn lacag dheeraada sharikadaha Maraykanku in ay ku bixiyaan iyada oo sharikada kalena lacagta ay leedahay ama macaashkeedu uu taageero ka helayo labada dawladood ee Canada iyo Britain iyada oo sharikadaas ay doonayso 125 dayuuradood inay ka iibiso sharikada Delta ee Maraykanka ra'iisul wasaaraha dalkan Britain Theresa May ayaa waxa ay go'aanka ku tilmaantay mid aad iyo aad looga xumaado ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa isaguna waxa uu qaaday sheegay inuu tallaabo arrinta ka qaadi doono waxaynu sii wadaynaa in aynu ka difaacno shirkadaha gaadiidka cirka ee Canada kuwa doonaya in ay danahooda oo keliya ilaashadaan sida Boeing iyo kuwa kale ururka ay leeyihiin booliiska caalamiga ah ee lagu magacaabay Interpol ayaa waxay u ogolaadeen Falastiiniyiintu xubin inay ka noqdaan taasoo Israa'iiliyiintu ay diidanayeen go'aankaasi waxaa lagu soo qaaday shirweyne Interpol ay yeesheen oo la isugu wada yimi Israa'iiliyiinta murankoodu waxa uu yahay Falastiiniyiintu inaanay ahayn dal markaa aanay xubin ka noqon karin ururka Interpol gantaallo ayaa lagu soo riday magaalada Kabuul ee xarunta waddankaasi Afghanistan iyadoo waqtigan la sheegay in wasiirka gaashaandhigga ee Maraykanka Jim Mattis booqasho dalka uu ku marayay
ra-iisul wasaaraha dalka ashraf ghani ayaa waxa uu sheegay tallaabooyinkan gantaarada lagu soo rogay dadka rayidkii inay muujinayso waxa uu ku tilmaamay argagixisadii inay sii daciifayaan. in la weeraraa dad rayid ah waa taag darro oo xoog ma aha. waa inaad isla markaa ogaataa in ciidamada iyo dadkuba ka guulaysteen argagixisada. innaga oo mid ihi waa inaynu meel ugu soo wada jeesannaa argagixisada. madaxa hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay Filippo Grandi ayaa waxa uu sheegay maamulka Myanmar inay xayiraad ku soo rogayaan gargaarka caalamiga ah ee ay doonayaan inay gaarsiiyaan gobolka Rakhine, halkaasoo la sheegay 100,000 oo qof oo muslimihi in ay ka soo carareen dhinaca dalkaasi Burma xasiloona darada halka ka taagan aawadeed. Mr. Grandi waxa uu sheegay iyaga iyo laanqeyrta casi in ay la'yihiin meel ay u maraan maadaama laga mamnuucay in ay baahida weyna dadka haysata wax ka qabtaan. waxa uu sheegay qaramada midoobay in laga mamnuucay howlgalladii ay ka waday gobolka Rakhine bishii August ee na soo dhaaftay. Grandi waxa uu sheegay in ay raadinayaan mas'uuliyiintaasi in ay arrimaha wax ka bedelaan oo uu sheegay dadkii iyaga matalayay ee qaramada midoobay in lagu khasbay inaanay xafiisyadooda iyo guryahooda ka soo bixin. ugu yaraan 500,000 oo qof oo qaxootiga Rohingya ayaa iminka u soo gudbay dhinaca Bangladesh. mahadsanid cabdirasaaq xaaji maxamed siraad. halkaad naga dhegaysanaysaana waa London. aan ku bilowne saamaynta khilaafka siyaasadeed ee ka taagan waddamada khaliijku ay ku yeeshateen xaaladda Soomaaliya ayaa ka sii daraysa iyadoo ay korortay kala aragtiduwanaanshaha ka dhex jirta dowladda dhexe ee federaalka iyo maamulada gobollada. markii ugu horreysay madaxweynayaasha maamul goboleedyada shanta ee Soomaaliya ayaa waxay soo saareen war-saxaafadeed ay ku cambaaraynayaan xildhibaano sheegay in ay xilka ka qaadeen madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xeef. war-saxaafadeedka oo ay ku wada saxiixnaayeen madaxweynayaasha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan, koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xeef ayaa sidoo kale lagu cambaareeyey faragelin la sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ku hayso arrimaha Galmudug. madaxtooyada Jubbaland ayaa BBC-da u xaqiijisay in war-saxaafadeedkaasi ay qayb ka tahay, balse maamul goboleedyada kale ayaan weli dhankooda ka hadlin in war-saxaafadeedkaasi ay wax ka og yihiin. waxaa kaloo cirka isku shareeray xiisadda dhanka siyaasadda ee ka taagan maamul goboleedka Galmudug kadib markii xubno ka tirsan baarlamaanka ay sheegeen inay xilkii ka qaadeen madaxweynaha maamulkaasi Axmed Ducaale Geelle Xeef. waxaase arrinkaasi ku gacan sayray Axmed Ducaale Geelle Xeef oo ku tilmaamay in aanu jirin xilligan qaanuun xilka looga qaadi karo. dadaallo xal loogu raadinayo xaaladda siyaasadeed ee kacsan ee ka taagan Galmudug ayaa waxaa bilaabay xildhibaanada iyo senatarada dowladda federaalka ee gobolkaasi ka soo jeeda, kuwaasi oo maanta socdaal ku tegey magaalada Cadaada xarunta ku-meel gaarka ee Galmudug. waxaana ay wada hadallo la yeesheen mas-uuliyiinta maamulkaasi ee khilaafku ka dhex aloosan yahay. senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa gaar ahaan aqalka markaasi sanadka ee dowladda Soomaaliya ayaa BBC-da uga warramay kulamadii uu maanta isaga iyo wafdiga la socda ay la yeesheen madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug iyo mas-uuliyiinta kale ee maamulkaasi. annaga ilaahi hadda waxaan noo qabsoonay inaan madaxdii kala duwaneyd inaan aragnay inta badan hay-adihii kale oo wixii noo dhiman iyo inaan aragno bulshadii qaybaheeda kala duwana bulshada rayidka sida odayaasha iyo inaan aragno bulshada qaybaheeda ayaa noo qorshaysan insha allah ilaa waktiga aan hawshaas waan aragnay. madaxweynaha aragnaasaan kasoo bilownay madaxweyne ku-xigeenka, gudoomiyaha baarlamaanka, ku-xigeenadiisa kulli waa aragnay. nimanka madaxda ciidamada qaar baana aragnay, qaarna hadda waa arkaynaa. waxaa kale oo noo dhiman haddii la yidhaahdo baarlamaanka inaan aragno maantay ama dalabtay ama ilaa xilliga ay hawshaas kusoo dhamaayo ayaanu war-saxaafadeed ayaanu soo saari doonaa haddii ilaahay. waxa weeye
xildhibaanada iyo senataradu waxay ka wakiilayeen dowladda federaalka Soomaaliya. kaasi waxa uu ahaa cabdi xasan cawaala qaybdiid oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo iiga waramayay hawsha u qabsoontay. madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa goor sii horeysay waxa uu beeniyey in baarlamaanka maamulkaasi uu xilka ka qaaday. Xaaf ayaa qadka taleefanka ugu waramay BBC-da. ugu horeyna wuxuu marka hore weydiiyey wariyaha BBC-du sida uu arko hadalka ka soo yeeray baarlamaanka Galmudug ah in isaga xilkii laga qaaday. wallahi arrintaas anigu war uma hayo, idaacaddan ka maqlay wax ka jiraan lama arko. baarlamaankiina hadda ay fadhiyaan iyagoo 60 iyo dhowr ah. waxa meesha tagana waxaa la ii sheegay inay 12 iyo 10 ahaayeen. waxaana waa wax fawda ah oo miidiyu fiirsay, wax ka jira lama arko. marka ugu horeysa waxaan ku sheegay 4 bilood iyo bar baan joogaa, 6 bilood ka yarna bulshada iyadoo gelin kara qof la doortay. dastuurku saas u qoraya. waxaad leedahay ma jiraan golo baarlamaan oo fariistay oo xilliga qaaday, mise waxaad leedahay sharciyada loo maray ayaa khalad ahayd? ma golo fariistay horta maba jiro, waa bataatan. hoolkiisa halkaana ku yaallaa, labadii gudoomiye ku-xigeenka gudoomiyihii waa joogaan. xaafad baa waxaan lagu sameeyaa la yidhi. wax ka jiraa ma jiraan, waa been iyo khuraafaad iyo iska fawdo weeye, fawdo un la abuuray weeye oo ninkan gudoomiyaha baarlamaanka ay ka shaqeeyey oo xamar laga soo diray oo la yidhi adugu un mar gacanta hala taago sidii Hirshabeelle oo kale. waa mooshin dabayl socota weeye, laakiin meel bay ku dhammaan doontaa insha allah. sida hadda arrinta halkaan ay u qanacsan tahay, goboladii iyo maamuladii iyo adduunkii iyo cudurada waa la yaaban tahay, dhaqanka dowladda dhexe war wixii ka soo baxaan arkayna. laakiin waxaan idin caddaynayaa anigu baarlamaan shirana ma jiro, xilligama qaadin, igamana qaadi karaan. hadday xataa wada shiraan igama qaadi karaan. hadda maba wada shirin oo mada jirin, golo shirana ma jiro. waxaad tiri xamar ayaa dad laga soo diray, dadkaasi yaa soo diray? dad baa laga soo diray. arrintaana bataatan waxaa ka dhici dowladda dhexaa ka dambaysa. waana arrinta Hirshabeelle lagu sameeyey, dool walbana saa in lagu sameeyaa la rabaa. marka dee taasna in adduunka ka hortagaa loo baahan yahay. dowladda dhexe maxaa in kala dhexeeyo oo aan ahayn inaad ka tirsan tihiin dowladdii? waa ka tirsannahay dee inaan ka tirsanaano oo aanu xuquuqdeeda ka dooranno, aan dhahno warbal aanu kala hadallo yaa loo baahan yahay. markaan kala hadallana hadalkii bay malaha dhibsadeen, cod ay doonayaan bay rabaan inay keensadaan. kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. dhankan kale waxaanu la xiriirnay abukaato Cabdirasaaq Nuux Xasan oo ah qareen madax bannaan oo degan magaalada Muqdisho. qadka taleefonka ayuu ugu waramay wariyaha BBC-da. waxaana marka hore uu weydiiyey bal sharcigu waxa uu ka qabo xilka qaadista madaxweynaha Galmudug. wallahi arrintaas anigu war uma hayo, idaacaddan ka maqlay wax ka jiraan lama arko. baarlamaankiina hadda ay fadhiyaan iyagoo 60 iyo dhowr ah. waxa meesha tagana waxaa la ii sheegay inay 12 iyo 10 ahaayeen. waxaana waa wax fawda ah oo miidiyu fiirsay, wax ka jira lama arko. marka ugu horeysa waxaan ku sheegay 4 bilood iyo bar baan joogaa. waa hagaag raalli ka ahaada codkaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo markaasi BBC-da u waramayay isaga oo kala hadlaya markaasi xilka qaadistaasi inaanay sharci ahayn. waa kan abukaato Cabdirasaaq Nuux Xasan. sharciga wuxuu ka leeyahay horta madaxweynaha xilka waa ay ka qaadi karaan baarlamaanka oo kuwii doortay weeye, ayadoo ay tahay in loo maro hanaan sharci. baarlamaanku way keeni karaan mooshin xilka qaadisa madaxweynaha. sida aan maqlayeyna waxaa aad dadka ugu dhex jirto erey ah madaxweyne 6 bilood gudahood mooshin lagama keeni karo. middaa iyadana waxba kama jiraan. dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobkiisa 92 oo ka hadlaya xilka qaadista iyo maxkamadeynta madaxweynaha jamhuuriyadda kuma caddo 6 bilood iyo bil iyo muddo kuma caddo. intaan lagama keeni karo mooshin kuma taalo. sidoo kaleete dastuurka iyo xeeroosaadka goboleedka Galmudugna kuma qorno madaxweynaha 6 bilood inaan laga keeni karin mooshin. ereyga 6 bilood ah wuxuu yahay haddii mas-uul ama madaxweynaha mooshin xilka qaadis laga keeno oo mooshinkii uu iska difaaco oo mooshinkii uu baaba'o, isla mooshinkaas 6 bilood gudahood lama soo celin karo oo xeeroosaadka ku qoran. ayadoo weliba waxaan la sugayay 6 bilood haddii ay soo baxdo wax laho khiyaamo qaran. xildhibaanada Galmudug ee xilka ka qaaday madaxweynaha Galmudug Xaaf waxaa la sheegay inay ku shireen meel aan ahayn madashii ay ku shiri jireen. marka sharciyan
in xildhibaano ay ku shiraan meel aan ahayn meeshii rasmiga ahayd waxa ay soo saaraan sharci ma noqonayaan? haa, waa noqonayaa. sida markii aan waraystay ay labada dhinacba dastuurkooda aan ka waraystay, xeeroosaadkooda aan eegnay, waxaa ugu qoran haddii baarlamaanka dowladeedka galmudug ay u suuroobi weydo xaruntoodii in ay shir ku qabsadaan, waxay ku shiri karaan meel kasta oo ka mid ah deegaanka goboleedka galmudug inay ku shiri karaan baa ugu qoran xeeroosaadkooda iyo sharcigooda. haddii marka baarlamaankii ay u arkeen inay meeshii ay ku shiri lahaayeen loo diiday, meeshii kaloo la habboon bay ku shiri karaan, sharciguna uma diiday. muranka haatan taagan waxa uu ka bilowday markii madaxda maamulkaasi galmudug ay bayaano kala duwan ka soo saareen mowqifka dowladda federaalka ay ka qaadatay dhibaatada ka taagan khaliijka. marka dastuurka ma qeexayo miya cidda leh hoggaanka arrimaha dibadda ee dalka? muranka siyaasadeed ee haatan ka taagan galmudug markay timaado dowladda dhexe ee federaalka maxaa u furan? waajibaad baa ka saaran xallinta khilaafkaas taagan. sababta hadduu khilaaf yimaado waxaa imaanaya ammaan darro. okay, sida ku cad qodobka 54 hadda laisku haysto, fakrad ka mid ah ayaa waxay leedahay amniga guud ee dalka waxaa iskale dowladda federaalka waa qasab inay farageliso. qodobka 126 ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu waajibaadka amniga guud ee qaranka saaraya dowladda dhexe federaalku. marka haddii khilaaf yimaado ammaan darra imaanayso. marka dowladda dhexe waajibaad dastuuri ah fuulaya inay farageliso, ammaanka ilaaliso, dib u heshiisiin u samayso, wada hadashiiso, baarto, dhex gasho. kaasi waxa uu ahaa abukaate cabdirasaaq nuux xasan oo ka hadlay dastuurka galmudug waxyaabaha ku xusan. haddaba waxaa istuudiyaha ila fadhiya xasan cabdi xayle oo la fagura arrimaha siyaasadda ee soomaaliya. xasan cabdi xayle, murankan maxaa lagu macnayn karaa iyo sida uu ku bilowday? horta murankan ma aha mid hadda dhashay, ma aha sidiisa markii la fiiriyo dabeecadda soomaaliya ay u doonayso inay u dhaqangelido sistemka loo yaqaano federaalka. aniga ra'yi ahaan shakhsiyan waxaan dhowr jeer idaacadaha adduunka ka sheegay in federaalka uusan marnaba ku habbooneen caqliyadda qabyaaladaysan ee soomaaliya, waayo keeni maayo wax horumarin ah oo caqliyadaynii aan ogsoonahay inay soo jiitamaysay ilaa berigaan gobonimada qaadanay ee dhibaato kasta sababtay in ay sii kordhido iyo qabyaaladii inay sii socoto ilaa generation fara badan ay soo socoto mooyaane wax kale systemkan federaalka keeni maayo. waana arrin dhibaatooyin badan oo ka dhashay arrintaas. tanna waa sidii oo kale, waa dowlad goboleedyo, waa madaxweyneyaal, waa golo masalan baarlamaan uusan dalku qaadi karin, waa wasiir. waa tahay arrinta federaalku way ballaaran tahay doodeeda, laakiin markaan u soo daadegno khilaafkan hadda taagan waxa uu ka dhashay arrimaha khaliijka oo saameyn ku yeeshay siyaasadda soomaaliya. marka in arrintaasi dowladda dhexe iyo maamul goboleedu intay wada fadhiistaan ay isla lafaguraan oo go-aan ka gaaraan soo ma wanaagsan? taasaa habbooneed, laakiin caqliyadda masalan qabyaaleed waxay soo hestaa dowlad kasta oo goboleed inay ayadu dowlad siyaasadaheeda u madax bannaan tahay. waxaan ka warqabnaa inay aadaan safaradii ayagu rabaan, inay heshiisiyo masalan xataa mararka qaarkood ammaanka qaranka soomaaliya taabanaya ay dowladaha la soo galaan. waxaan ogsoonahay xataa faragelintii annaga aan islahayn waxay ka imaan kartaa geopoliticska geeska africa. hadda in masalan khaliijka uu ku soo darsoomay oo ilaa waqti laga sheeganaya masalan ee dowladaha qaarkood oo khaliijka inay arrimaha soomaaliya si xun u farageliyaan, inay masalan ula dhaqmaan soomaalida sidii dad ku shaqeeya oo keliya inay mercenary yihiin, laakiin dalkan inuusan siyaasad soomaaliya oo haybaddii soomaaliya iyo dowladnimadii soomaaliya ilaalinaysa inaysan marnaba ula dhaqmin, laakiin ay moodaan soomaalida dad baahan, dad dana masalan dhaqaale leh, boorso lacagahan idin haynaa, arrimahayna qaata. waxaana garan karnaa go-aankii dowladda soomaaliya ay gaartay oo aan u anqabo inay aad ugu toosneed, ayadoo xataa duruufaha qaarkood la tixgelin karo inay dhexdhexaad ka joogsato. laakiin dowladda waxaa laleeyahay iyadoon la tashi badan samaynin, xaaladda aan si wanaagsan u miisaamin ayay degdeg go-aan ku gaartay. dhibaatadan ayayna keentay. maxaad uga jawaabaysaa? may dowladdu qasab kuma aha inay maamul goboleedyada la tashato. maamul goboleedyada ma aha madax dowladda siyaasadda soomaaliya ka madax bannaan ma aha. waa run in laga baarandegay inay fiicneed, waa run in masalan in talada dhinacyo badan laga fiiriyo. dastuurka laakiin wuxuu qorayaa qodobka 53 inay la tashato ayaa la leeyahay, laakiin go-aanka gaarista dowladda ayaa iskale, laakiin wada tashiga waa inay la tashataa. aniga ma ila aha waxyaabaha yoomiyaadka, marka arrintan waa yoomiyaad waaye. masalan madaxweynihii hore dalka ka tegey iiraan uu xiriirka u gooyey, iyadoo masalan sacuudiga uu ku dirqiyey qalad kastaba ha ahaato, laakiin maamul goboleedyada kama aysan hadlin. maanta
waxaa dhaqaajina maamul goboleedyada ila ah inay dan soomaaliyeed oo ammaanka iyo dhaqaalaha iyo masalan maxaa la yihahdaa baraaraha soomaaliya fuujarka inay u yeelayaan ilama aha markaad u fiirsato shakhsiyaadka masalan heshiisyadan wada galay waxaa laga yaabaa badankooda anoon qofna ku xadgudbayn inay duruufo dhaqaalo ayaga gaar u ah masalan dad adarka waxay u maamulaan sidii inuu yahay enterprise oo lacagaha ayaga soo gala iyo khasaaraha iyo faa'iidooyinka laakiin xasan xayle siyaasaddu waa dan joogto ah haddii dhaqaale iyo danihii dalka dhinaca sacuudiga xulafadiisa ay u badan tahay maxaa diidaya inay danahooda difaacaan runtii xulafada sacuudiga waxaa dowladda lagu eedeyn lahaa hadday sacuudiga iyo xulafadiisa iyo dalka qatar ay ishayaan ay ku hayaan wax cad oo ah in masalan qatar ay kulug leedahay wax lagu eedeeyey waa la dhihi lahaa maamul goboleedyada masalan waxay ku dareen arrinta haddii dowladda meesha cidlaa ka istaagto qatar oo eedaysan oo eedu ay ku caddahay ayay haddana danihii soomaaliya oo dhaqaale oo dadka masaakiinta keliya markii dowladnimada laga tago waxaan ogsoonnahay dhaqaalaha soomaaliya xataa qowsaska markii la fiirsho inuu ku xiran yahay wadamada khaliijka waan ogsoonnahay dhibaato inay uga imaan doonto haddii masalan ay si xun u dhaqmaan ama falcelin dhib badan ee keena dowladaha masalan khaliijku waa la ogsoon qoyska soomaalida ama xawaaladaha ama dhaqaalaha faraha badan inuu taabanayo laakiin reality waxay tahay dowladda soomaalida waxay ku toosneed in khilaafaad carbeed oo ayaga ishayo biri heshiin kara inay bannaanka ka joogsato aysan cid waayahay ugu dambayntii xasan xaylow waxaan ognahay khilaafkan khaliijku inuu laba dhinac yahay oo dowladdii sacuudiga iyo imaaraadkii iyo ay dhinac yihiin dhinaca qatarna waxaa gadaal kaga daaban dalka turkiga oo aan ognahay saamaynta uu ku leeyahay soomaaliya markaad fiiriso marka labada miisaan ee soomaaliya siyaasadda saamaynta ay ku leeyahay adoo soo koobaya soomaaliya markaasi kuma adka inay go'aan qaadato dhexda horta marka aan arrinta ballaarino masalan arrimaha khaliijka masalan dowladda imaaraadka arrimaha ay soomaaliya u fargelinayso waxaa cad oo adduunyada u cad inay tahay awoodda turkiya oo geeska afrika masalan kusii yani socota inay masalan si ay ugu tahay masalan challenge ama ay masalan la fariifootamayso dowladda turkiya waan ogsoonahay turkiya iyo xiriirka ay leedahay imaaraadka gaar ahaan inuu aad u foolxun yahay waxaan ka warqabnaa oo lagu eedeynaya imaaraadka inay maalgeliyeen aftida hadda ka socota masalan kurdistan turkida xiriirka ay noo masalan aan la leenahay waxaa laga yaabaa inuu ka fiican yahay kana istraatiijiysan yahay haddii la fiirsho long term ama waqtiga dheer aad baa umaasan tahay xasan cabdi xayle oo istuudiyaha ila fadhiyey ina la falanqaynayey umuurahaasi bal markana isla qodobkaasi haddii aanu eegno dhinaca aragtida dadka dhegeystayaasha ah ee facebooka iyagoo aragtidooda kusoo dhiibtaa asalaamu calaykum b b c magacaygu cabdiraxmaan xaaji daahir jooga degmada cali xaydh oo ka tirsan gobolka awdal khilaafka siyaasadeed ee xoogan ee ka dhex urtay madaxda maamul goboleedka galmudug keenana in madaxweynihii hadda la ydhaha xilka laga qaaday madaxweynihiina uu ku gacan saydho o yidhahdo wax xiloo layga qaaday ma jirta waxa meesha laga sameeyey waa sharci darro runtii waxay u baahan tahay in waanwaan iyo waa hadal siyaasadeed laga gala arrinta si laiskugu soo dhoweeyo dhinacyadaas haya waayo soomaalidu waxay tidhahdaa balaayo hor la qabtay ilaahay haddaba la qabta male haddii runtii arrintaas dowladda dhexe iyo oqaasha waxgaradkii siyaasiyiintu ay arrintaas runtii ka geli waayaan wada hadal oo arrinta la qaboojin waayo waxay keenaysaa in maamulada kale ee soomaaliya ay u gudubto in maamulada kale ee soomaaliya iyo dowladdu si xoogan ay iskugu dhacaan in maamuladuna eedaynta ay joojiyaan ay dowladda ku eedaynayaan inay faragelin ku hayso dowladdoodana ay aaminaan oona dowladda dhinac ordin runtii waxaa qurux badan soomaalidu inay wakhtigan fahanto inaan loo baahnayn khilaaf siyaasadeed hor leh arrimaha waaweyn ee siyaasigana dowladda looga dambeeyo waa hagaagkaasi waxau ahaa aragtida facebooka ee markaasi iyagu kusoo dhiibanayey bal markana haddii aanu galno dhinaca waddanka ciraaq ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi ayaa waxa uu markaasi dalbaday in la baabi'iyo natiijada aftida madax bannaanida ee muranka dhalisay ee ay qabteen markaasi gobolka kurdiyiinta ee waddankaasi ciraaqa dowladda dhexe ee baqhdaad ayaa waxaa ka go'an in waddanka ay isku hayso oo midnimadiisa ay ilaaliso wariyaha b b c da bariga dhexe alan johnston ayaa warbixintan diyaariya waa kan cabdirasaaq xaaji maxamed siraad oo soo jeediya go'aanka aftidii dhacday ee ay lahaayeen kurdiyiinta ciraaq weli laguma dhawaaqin laakiin waa midaan shaki ku jirin waxaa la hubaa in haa dadku ay odhan doonaan oo ay u codayn doonaan
hase yeeshee ra'iisul wasaaraha waddanka ciraaq haydar al cabaadi ayaa waxa uu sheegay go'aankan in lagu gacan sayri doono isagoo la hadlay baarlamaanka magaalada bakhdaad waxa uu ku celceliyey dowladda dhexe inaanay ka hadli doonin go'aanka aftidaasi kurdiyiintu shakila'aan waxa ay rajaynayaan bakhdaad in wakhtigu uu keeni doono inay wax dabciyaan waxay hadda ku dhawaaqeen inay doonayaan wadahadal inay la galaan ciraaq ku saabsan madax bannaanidooda cabdirasaaq xaaji maxamed siraad aad buu ugu mahadsan yahay warbixintaasi inoo soo jeedinayey dadka soo galootiga ah ayaa markii ay soo galaan dalalka qaaradda yurub waxa ay la kulmaan dhibaatooyin xagga dhaqanka ah oo markaa ay kala kulmaan iyo sida ay isu waafajin lahaayeen dhaqamadii hore ay haysteen cayni axmed xaanshi waxa ay ka mid tahay urur lagu magacaabo Phoenix Helsinki oo dadka ka wacyigeliya dhibaatooyinkaasi waxaana marka hore aan ka waraystay bal arrimaha ay daraasadda ku sameeyeen ee ugu dambeeyey waxaan sameynay baaritaanka waxaa waaye arrintan gudniinka laga hadlo oo xataa filan dhibaatooyin badan kunoo keena anaka dhan marka waxaan baaritaan ka sameynay oo rabnay inaan soo codbixino gabdhaha oo inta laga waday oo inta ku dhishteen oo wadamihii waalidiintooda la geeyey oo lagu soo guday oo lasoo noqay waa gartay marka maxaa dhinacaas u doorateen dhibaatooyin badan baa laga yaabaa dadka ajnabiga ah inay la soo darsaan marka ay yimaadaan waddanka Finland ama dalalka kale ee Yurub ay ku cusub yihiin arrintaasi gaar waxaa ugu dooranay because waxaan fahamnay maadaama aninkii waddankaa kusoo kornay anin shaksi ahaan ahaynay waddanka wax badan aan jooga oo kusoo koray waxaan sameeyaa shaqo oo dhallinyaradaan la sameeyaa waalidiintana waa la sameeyaa oo ajaanib badan waxaan usoo saaray because waxaa waaye waxaa jiro dad badan oo arrintaa la shaqeeyaan Finlandi oo dhinaca dowladda ka socdo laakiin ayaga ma fahamsano mana fahmayaan codadkaana ma maqli karaan saana ku maqli karno marka codkii waxaa ka maqnaa markasto dadkii oo arrinta ku dhacay iyo dadkii arrintii la kulmeen codkooda inuu soo baxo maxay dareemayaan maxaa kale si kale oo loo sameyn karaa hadhowtiseen waxaan mar dambe u dhicin taasna muhiimad waxaa u ahay dadkii wixii ay ku dhaceen codkooda in la soo saaro si oo loogu hortegi karo marka maxaa idiin soo baxay markaa daraasaddaas samayseen oo hawshaasi aad guda gasheen arrimahan dadka ururada ha ahaadaan ama dhinaca dowladda ha ahaadaan dadka u hadlaayaan ama la shaqeynayaan inay u baahan yihiin ayaga laftirkooda tababar badan oo arrimaha loogu sheekeeyo si ay ugula sheekeystaan waalidiinta ama gabdhihii oo ama saan ku dhacay ama ku dhici doono inay ka helaan aamin ahaan iyo inay u sheegi karaan maadaama gabdhahan hadda waxaan ku dhaceen qofna kalema sheekeenin waalidiintooda qof lamasan sheekeensanin dhinaca caafimaadka ahaadaan ama dhinaca isguulka ahaadaan kasakow marka dadkii dhibaatadan ku dhacday inaad waraysataan oo waqti badan aad gelisaan waqti ma gelisaan mid lamid ah waalidiinta iyo mujtamacyada ay ka dhasheen ubadkan laga yaabo inay u nuglaadaan arrimahaasi gudniinka iyagu mamnuuca ka ah dalalka Yurub ani horta shakhsi ahaanteeda dad badan waalidiin badan waa la hadlay laakiin communityyinka dadkan way badan yihiin gabdhahan hal wadan kama socdaan wadanyaan kala duwan ay ka socdaan kullina ma gaarsiin kari laakiin muhiimadda waxaa ah in oo ahaan lagala hadlo waalidiinta inay dhexdooda iskala hadlaan oo anigana intaa samey karna aan la hadna waalidiinta laakiin waalidiinta waxaa ka sokoo waxaa waa in hadalka la bilaaboba oo dadweynaha dhan laga hadlo in waxaan ay qalad tahay ayna fiicneynin waalidiintii iyagu markaasi ku lug lahaa haddii ayba dhacdo in gabdhahan inta laga waday Finland meelo kale lagu soo guday maxay la kulmi karaan oo dhibaato ah waalidiinta horta ko waxay la kulmi karaan horta Finland hal qof weli hal ma jirto oo biliiska ama dowladda ama qof dhibaato u keensatay dheheen waxaana dhaceen laakiin waalidkii wada cunugiisa oo waddan kala geeyo ama waddankii gudihiisa ku gudo waa dembi maxkamadan ka iman karto maxaa idin qorshaysan haatan sideebaase looga soo dhoweeyo hawsha ururkiina Phoenix Helsinki ay wadaan marka la fiiriyo mujtamacyada kala duwan ee soo galootiga ku ah waddankaasi Finland horta si fiican waa loola soo dhaweeyey inkastoo oo markasta arrin oo saan lasoo qaado laga yaabo inay dadka xumaadaan maadaama dadka dhan ay sameynin oo ajaanibta dhan ay sameynin waxaa laga yaaba dad inay dhahaan anaka waxaa nama quseeyo waayo anaka dhan noola malaynaya inaan isku mid nahay si fiican noola soo dhaweeyey dhinaca dowladdana way fahamtay in oo ay u baahan yihiin wax tababar badan oo arrintan oo si fiican looga sii sheekeeyo hadalna wuu dhaliyo horta dood way dhalisaa aan u baahannahay maadaama arrintan ay tahay arrin wax waqti dheer laga aamusay
waxa anaka aan rajeynaynan waxaaba horta kow in oo dhinaca dawladda ee fahanto waxaan arrin weyn waaye waana inay si fiican u qabataa hooshana inay la qabataa dadka ajaanibta ah maadaama ay ayagii arrintan badankooda ee quseyso waa ayagii inay sii gudbiyaan ujeedada ka labaadna waxaaba arrinaa qaban waxaa macnaha dadka waaweyn la sheekeysano oo la hadalno hadal dhalno inay waxaan dan u ahaynin iyo aan ugu sheekeyno dhinaca caafimaadka dhibaatooyinka u gey kara gabdhaha cayni axmed xaanshi oo goor sii horeysay qadka taleefonka igu warramaysay iyadoo joogta magaalada helsinki ee waddanka finland waxaa inoo soo socda warar ku saabsan falastiin oo iyadu xubin ka noqonaysa guddiga waa booliska caalamiga interpol loo yaqaano iyo ra-iisul wasaarihii hore ee tailan oo 5 sano lagu xukumay iyada oo dalka ka maqan balse haatan magaalada muqdisho tan iyo shalay waxaa baraha bulshada ay ku wada xiriirayay oo laisla dhex maraya muuqaal markaasi isagu muujinaya mid ka mid a gaadiidka dagaalka ee Amazon warkaas ayaa isna goordhow inoo imaan doona hase yeeshee saacadda stuudiga ayaa haatan waxa ay tilmaamaysaa 5:00 galabnimo ee Afrikada Bari waa xilliga aad nooga barateen mar kale inaan idin dulmarno qodobadii warka ugu dar corona Cabdirasaaq aan ka codsado ra-iisul wasaaraha waddanka ciraaq xaydar al cabaadi ayaa waxa uu codsaday in la baabi'iyo aftidii dhowaan ka dhacday deegaanka kurdiyiinta isagoo la hadlay barnaamijka magaalada baqhdaad xaydar al cabaadi waxa uu ku celceliyey dowladda dhexe marnaba inaanay ka hadli doonin go'aanka ka soo baxa aftidii ka dhacday deegaankaasi maalintii isniintii waxaanu sheegay in waxaanay ahayd iyadoo aftidaasu ay tahay mid kurdiyiintu ay ku doonayaan madax bannaani ra-iisul wasaarihii hore ee dalka tailand yingluck shinawat ayaa lagu xukumay 5 sannadood oo xabsi ah waxaana arrintaasu ay ku lug lahayd iyada oo la sheegay lacag dulsaara oo dhinaca bariiska dalka in ay ku lug lahayd dowladdeedu yingluck waxaan may joogin maxkamadda go'aankaasi markii la gaadhay waxaana la sheegay inay ka baxsatay tailand bishii ina soo dhaaftay oo aan dacwadeeda laba soo qaadin intii ka horreysay go'aanadeeda waxaa la sheegay dhulka ay u baxsatay in loo malaynayo in ay tahay Dubai halkaasoo walaalkeed Thaksin Shinawat uu degan yahay isagoo qudhiisu hore marowga ahaan jiray dalka ra'iisul wasaare iminkana dabadda ku nool Canada iyo Britain ayaa aad uga gilgishay go'aan ka yimid dhinaca Maraykanka oo cashuuro dheeraada oo gaaraya 200% lagu soo rogay dayuuradaha Maraykanka laga iibiyey ee Kanadiyiintu sharikadda ay leeyihiin ee Bombardier oo iyadu waqooyiga Ireland xafiiskeeda weyne uu yahay wasaaradda ganacsiga ee waddanka Maraykanka ayaa waxa ay ku tilmaantay lacagta dulsaarka iyaga ay saarayaan sharikadaasi inay tahay mid ay doonayaan inay ku qaboojiyaan iibka dayuuradaha ee waddanka Maraykanka iyada oo sharikadda Delta Bombardier ay doonayso inay ka iibsato ilaa 125 dayuuradood ra-iisul wasaaraha dalkan Britain May iyo ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa labaduba aad arrinta uga gilgishay dhowr gantaal ayaa lagu soo riday magaalada Kabuul xagga diyuuradaha taasoo ku soo beegantay iyada oo magaalada Kabuul ee xarunta waddanka Afghanistan uu booqasho ku joogo xogayaha gaashaandhigga ee waddanka Maraykanka Jim Mattis Taliban iyo dowladda Islaamiga ayaa labaduba waxa ay sheegteen weerarkaasi in ay ka dambeeyeen hase yeeshee gegada dayuuradaha ma joogin marka wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Maraykanka waxa kale oo jooga Afghanistan xogayaha guud ee gaashaandhigga NATO Jens Stoltenberg oo isaga iyo wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Maraykankuba ay la hadlayaan ama wadahadal ay la leeyihiin madaxweyne Ashraf Ghani iyo saraakiil sare oo reer Afghanistan ururka booliiska caalamiga ee lagu magacaabo Interpol ayaa waxay u ogolaadeen Falastiiniyiintu xubin inay ka noqdaan inkastoo taa Israa'iiliyiintu ay diidanayeen dhawaaqidaas waxay ku soo beegatay shirweynaha guud ee Interpol sanadkii ay yeelato muranka Israa'iiliyiintu waxa uu yahay Falastiini inaanay ahayn dal markaasina aan xaq u lahayn inay xubin ka noqon karaan Interpol cabdirasaaq aad buu mahadsan yahay warkaasi qodobada ugu doorka roon ee inoo dul maray bal markana sheekooyin ka duwan kuwii hore waddanka Guinea ayaa nin waxa uu badbaadiyey mujtamaciisa isagoo ka badbaadiyey dhinaca markaasi aqoon darrada sheekadaasi iyo qaabkuu u badbaadiyey iyo bal waxa uu qabtay waxa istuudiga la fadhiya Mawlid Xaaji Cabdi
aadan waa mahadsan tahay ha ninkan waxaa la yidhahdaa horta magaciisa ibrahim tonkara wuxuu ku nool yahay tuulo yar oo la yidhahdo baladuo waddanka Guinea ayay ka tirsan tahay badbaado kale maaha ninkani waddankaasi waxaa dhibaato ay ka taagan tahay arrimaha la xiriira xagga korontada oo dadka dhibaato ayay ku qabaan korontada xaggeeda marka ninkaasi waa macallin xisaabta dhiga wuxuu fakeray sidii bulshadiisa uu ugu samayn lahaa haqabtir xagga korontada marka generatorro iyo qalab koronto iyo wax badan oo lasoo gataa waxay u baahan tahay lacag iyo hawl badan lacagtiisii oo dhan uu haystay oo haddii la xisaabo kaydkiisii u haystay 4,650 euro lacag u dhiganta ayuu qaatay waa 50 milyan oo lacagta waddanka Guinea ah marka wuxuu sameeyey in uu sameeyo dhismaha biyo xireen markaasuu biyo xireenkii wuxuu ka sameeyey qalab uu isku rakibay oo markaa marawaxad ama fan markaa dhalinaysa ina intay biyuhu daamkaas ama biyo xireenka ka soo wareegaan markaa marawaxaddu ay wareegto sidaa koronto ay ku dhaliso arrintii markaa ninkaa wuu sameeyey uuna ku guulaystay ilaa iyo 90 guri oo tuulada ku yaala ayuu dabsiya haatan marka dadkii waxay walwal ka qabeen arrintaasi sanadkii hore ayuu arrintani ku dhaqaaqay oo uu damcay in uu sameeyo dadku way la yaabanay waxay la warwad waalan tahay iska fariiso marka wuxuu arrinta waa ka dhamaynaya arrintii hadda wuxuu leeyahay ninkaasi dadka 9,000 oo kilowatt oo koronto ayaan dhaliyey waxaana weydiiyey dadka inay bishii iska bixiyaan lacag dhan 2,000 oo lacagta waddanka Guinea waxay u dhigantaa 19 senti oo euro waa lacag aad u yar marka wuxuu leeyahay haddaan heli lahaa lacag ka badan wax weyn baan sii samayn lahaa waxaana qorshaha igu jirtuu leeyahay 721 oo guri inaa sanadka 20 markuu yahay sida qorshuhu uu yahay World Bank ay maalgelinayso waddanka Guinea in aynu dhalino arrintaasi marka ninkii hadda xaafadii dhan baa laga soo dhaweeyay tuuladii dhan aad laga soo dhaweynaya marka hadii liilaa dad badan oo noocaas ah wax badan bay qaban lahaayeen ha fikri fiican buu sameeyay marka wuxuu soo jiitay saxaafadda BBC-da kama tahay waa sidaa sababta aynu barnaamijyada uga samaynayna maasanid mawlid xaaji cabdi waddanka Sacuudi Carabiya ayaa haweenku markii ugu horeysay waxa loo ogolaaday in ay gaari kaxayn karaan boqor Salmaan ayaa waxa uu soo saaray sharci arrintaasi meel marin doona oo bisha Juun soo socota taas oo soo afjaraysa muddadii dheerayd ee haweenku mamnuuca ay ka ahayd inay gawaari kaxayn karaan waxa ay ka dambeysay halgan dheer oo lagu doonayay in sharciga la bedelo oo markaasi la keenay oo ololo dheer loo galay iyadoo haweenka qaarna xabsi la geeyey ama markaa lagu ganaaxay umuurtaasi iyadoo lagu eedeeyey inay sharci darro tahay gaari inay kaxayn karaan abiir mikhaas oo ah haweeney sacuudiya oo ku nool magaalada London oo iyadoo u shaqaysa wargeyska carabiga ku soo baxa ee Sharq al-Awsad ayaa umuurtaasi ka hadashay I turned on the TV, the Saudi channel, and there it was, and I couldn't believe it. I started laughing and waxaan daaray telefishinka Sacuudiga kadibna arrintan ayaanba ku arkay waan rumaysan waayey waxaan bilaabay inaan qoslo oo boodboodo aniga oo farxad la qaylinaya aad ayaan u farxay waa guul weyn oo la gaaray wax baan codsanay ugu dambeyntiina waan helnay wixii aan doonaynay something and at last we've been granted what we want. abeer mishqaas way sii hadashay oo umuurtaasi ayay sii faahfaahisay A lot of things have been happening, with the opening of lots of jobs for women. waxyaabo badan ayaa dhacayay sida aad og tahay sida in shaqooyin badan dumarka loo abuuro iyo in guddiga caashuura ee doorashooyinka deegaanka ay dumarku ka qayb galaan waxaa jira waxyaabo badan oo dhacay dhab ahaantii sanadihii lasoo dhaafay tanina waddada ayay ku soo jirtay dabcan waxaa jira isbeddel badan oo imaanaya balse tan ayaa ah calaamad muhiim ah And of course there's more to come, but this was kind of very symbolic. waa hagaag stuudiyaha waxaa ila fadhiya maxamed maxamuud cadde maxamed markii ugu horeysay haweenka sacuudiga waxaa loo ogolaanayaa gawaarida inay wadi karaan boqorkii ayaa ku dhawaaqay umuurtaasi maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay dowladda sacuudiga boqor salma iyo wiilkiisa amiirka dhaxalka iskale waxa ay wadaan barnaamij la yidhaahdo 2030 in laga meelmariyo wadanka Sacuudi Arabia oo laga dhigo wadan casri ah oo aanan saliid kaliya ku tirsanayn waxa ay abuurayaan shaqooyin waxay abuurayaan mujtamaca kala bar waa dumar ama in ka badan in xoogaasi ay wadanka shaqo ka helaan dadka muwaafidiinta la yidhahdo ama dibadda kasoo shaqo taga ee wadanka ka shaqeeya ayaa la rabaa in la yareeyo hadda arrintan dumarka loo ogolaanaya inay baabuurka wadaan waxa ay suuqa ka saaraysaa
dad aanan ka yarayn 100,000 oo darawal ahaa oo dibadda laga keeni jiray oo qoysaska baabuur u wada jiray. hadda haddii hooyadii ay baabuurka wadan karto waxaa fududaanaysa in ay iskuulka ilmaheeda geysato. dhinaca kale dhaqaalihiina wuu kobcayayo gawaari fara badan dumarkii haddii ay ku soo biiraan inay baabuur wataan. dhinacaas bal ka waran. dhaqaalaha waa kobcayaa, shaqana way abuuraysaa, laakiin mujtamaca sacuudiga waa ka duwan yahay mujtamacayaasha kale ee caalamka marka la fiiriyo dhaqan ahaan. bulshada dumarka lamaba arkaba inta badan, laakiin had deertan siyaasaddan ay wadaan boqor Salma iyo wiilkiisa amiirka dhaxalka iskale waxa ay furfuraysaa xoog aan hore loo isticmaalin sacuudiga. waana markii ugu horreysay ee tallaabadan la qaado. doorashooyinka inay dumar ka qayb qaadan karaan mar hore ayaa la meelmariyey, haddana waxaa muuqanaysa in ay dumarku shaqooyin fara badan geli karaan. ugu dambeyntii markaa bal dadka arrintan soo dhoweeyey qaar kalena way diidan yihiin oo horey waxaa jiray wadaad imaam ah oo arrintaa ka hadlay oo isagiiba imaamnimadii laga qaaday. markaaad fiiriso bal dareenka sacuudiga waa sidee? marka la fiiriyo dhaqan ahaan wadankani sacuudiga shareecada islaamka ayaa lagu xukumaa. culummada inta badan waxay u arkaan arrintani inuu yahay horumar aada deg deg u ah oo aan mujtamacooda la jaan qaadi karayn. ninkaa shiikha a sheegtay waa run weeye, jagada waa laga qaaday, xilkii uu hayay waa laga qaaday. sababta looga qaadan waxa weeye ereyada uu isticmaalay ayaan akhlaaq ahaan wanaagsanayn. wax waa diidi kartaa, laakiin sida aad ra'yigaaga u cabirayso ayaa la rabaa inay noqoto si miisaaman. dumarka hooyooyin ah oo walaalo ah oo xaasas ah oo ayeeyooyin ah oo xaq leh inay xaqooda duudsiiso adiga oo diinka u gabanaya waxay noqonaysaa wax aada u culus. waxaana muuqata sacuudiga 2030 marka la gaaro in ilo badan uu abuuri doono warshadayn, dalxiis, xagga qaanuunka, xagga xataa arrintan dumarka ay baranayaan sida gaariga loo wado. dumar fara badan ayay shaqooyin u abuuraysaa oo waxay noqonayaan macalimiin gabdhaha bara sida baabuurta loo wado. mahadsanid maxamed maxamuud cadde. tan iyo shalay waxaa baraha bulshada ay ku wada xiriirto la isla dhex marayey muuqaal muujinaya mid ka mida gaadiidka dagaalka ee amisom oo si ula kac ah u riixaya gaari kuwa rayidka ah. goobta ay arrintaasi ka dhacday ayaa waxa ay ahayd iskoyska lambar 4 ee magaalada muqdisho, waxaana ay caro xoog leh ay ka dhex abuurtay baraha bulshada. gudoomiyaha gobolka banaadir taabid cabdi maxamed ayaa waxa uu ka mid ahaa dadkii isagu ka carooday amuurahaasi. wariyaha BBC da magaalada muqdisho cali nuur salaad ayuu uga waramay waxa ay ka maamul ahaan samaynayaan markii ay arkeen fideogaasi. wallaahi runtii horta mar labaadaan ku celinaa aad iyo aad baan uga xumaanay. ficilkaas wuxuu ahaa ficil oo naxdin leh, bini'aadanimada ka baxsan, wax la aqbali karana ma aha. wixii ugu horreeyey ee tillaabo ah ee ku habboonna waxay ahayd inaan marka hore xaqiijiyo sida ay wax u dhaceen iyo qaabka ay ahaayeen, kadibna aan gaaro ciddii mas-uuliyadda qaadi lahayd. maadaama gaariga amisom uu ahaa in la helay xisaabtan dhansa, taas ayaan tillaabada kuwaad qaadnay. dadkii gaariga saarnaa xaaladoodu waa sidee hadda? waa mahadsan tahay. alxamdulillah sida uu naloo soo sheegay xaaladooda hadda way fiican tahay, laakiin dee qof intaa ku dhacday xitaa haddii aysan dhaawac gaarin ama haddii wax gaarin maskaxiyan qof wax weyn baa gaaray. waa xaqiiqtaas. marka aan hanti keliya maaha, laakiin qofka maskaxiisa xataa haddii jirkiisa kore aysan wax u gaarin maskaxiisa qofka oo wixii saas bini'aadanimada ka baxsanaa dhacay wax saxan maaha. laakiin waan la xiriira amisom, jawaab degdeg ayay ka bixin doonaan, ummaddana waa loo sheegi doonaa insha allah. marka ay shilal ku dhacaan dadka caadiga ah waxaa qaada kiisaskaas ciidanka taraafikada. amisom marka ay shil saan oo kale ah galaan yaa qaada kiisaskooda? waad mahadsantahay. maalin dhaweytay markii shirka aan gelaynay oo aan isu imaanayna ayaan ka wada hadalnay in la sameeyo qorshe cad ee ku aadan shilalkan soo noqnoqday ee magaalada muqdisho. aniga ka duq magaalo ahaan dadka ayaan matalaa. dhib kasta oo dadka loo geysto waxaan ahay codkooda. waa inaan ka dhiidhiyaa, waa inaan xaqiijiyaa inaysan soo laaban. saa darteed baan ku heshiinay in la sameeyo isla xisaabtan dhab ah. dabcan bini'aadanku shil wuu dhici karaa, laakiin in la helo qof in lala xisaabtamo mar alla markuu dhaco waxyaaba bini'aadan ka baxsanna wax la aqbali kara maaha. dad badan ayaa aad uga carooday markii ay arrinkan arkeen. maxaad ku qancinaysaa? waxaan runtii ku qancinayaa waa marka hore wax naxdin leh, wax bini'aadanimada ka baxsan oo aniga shakhsiyan itaabatay, muwaadin kastana way taabanaysaa. dadka muqdishaawiga ah waxaan leeyahay runtii annagu idinkaan idin taagannaha codkiinna baan nahay. waxaan xaqiijinaynaa la xisaabtan dhab ah in ummadda aan jawaab degdega ee amisom ay ka siiso falkii shala dhacay. gudoomiyaha gobolka banaadir taabid cabdi maxamed oo u waramayey wariyaha BBC da cali nuur salaad. waxaa inoo soo socda war ku saabsan ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka Thailand
oo 5 sano lagu xukumay iyadoo dalkaba ka maqan oon maxkamadda aan joogin balse haatan Falastiin. hay-adda booliiska caalamiga ee Interpol ayaa waxa ay Falastiin u ogolaatay in ay xubin ka noqoto ururkaasi booliiska caalamiga ah inkastoo Israa'iil ay ka soo horjeesatay ku dhawaaqistaasi ayaa waxa la sameeyay kadib markii ay u codeeyeen golaha guud ee sanadlaha ee booliiska caalamiga magaalada Jerusalem waxaa warbixintan ka soo dirtay Yolanda Nel waxaana warbixintan soo jeedinaya Cabdifataax Ibraahim Cagayare. wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiiniyiinta Riyaad al-Maliki ayaa warkan ku tilmaamay guul lagu gaaray waxa ugu yeeray mowqifka mabda'a ku salaysan ee ay wada qaateen inta badan dalalka xubnaha ka booliska caalamiga ee Interpol. Israa'iil ayaa isku dayday in ay dib u dhigto codbixinta iyadoo sheegaysa in Falastiin aanay qaran ahayn una qalmin inay xubin ka noqoto Interpol. Israa'iil ayaa ku doodaysa in waddada keliya ee ay Falastiiniyiintu ku gaari karaan yoolkooda uu yahay inay noqdaan dal madax bannaan oo loo sii maro heshiis nabadeed oo lagu gaaray wadahadal. Si kastaba ha ahaatee 5 sano ka hor ayuu golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay waxa uu dallacsiiyey heerka maamulka Falastiiniyiinta uu ku leeyahay qaramada midoobay oo la gaarsiiyey heerka dowlad aan xubin joogta ka ahayn qaramada midoobay. Cabdifataax aad buu mahadsan yahay warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Ra'iisul wasaarihii hore ee Thailand Yingluck Shinawatra ayaa waxaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah ku lug lahaanshaheeda lacag taakulayna oo dowladdu ay ku kabaysay dhinaca bariiska. Mr. Yingluck ayaa waxaa markaasi ay ahayd qof aan joogin maxkamaddii xukunkaasi go'aanka ka gaaraysay waxaana ay ka carartay waddanka Thailand bishii la soo dhaafay ka hor waqtigii lagu waday in ay go'aanka maxkamaddu ka gaarto kiiskeeda. waxaa loo malaynayaa inay Dubai u baxsatay oo ay ku nooshahay guri halkaasi ku yaala oo walaalkeed oo lagu magacaabo Tasiin Shinawatra uu halkaasi ku leeyahay. Faarax Lamaane ayaa soo jeedinaya. hubaal ah ayaa jiray markii xukunka la ridayey xaqiiqdiina Yingluck Shinawatra waxa ay u muuqatay inay helayso xukun la tuhunsanaa inuu adag yahay halkii uu noqon lahaa xukun waxoogaa yaro jilicsan. waxaa hore ay isaga dhiga tirtay fursado ay kaga bixi kartay Thailand intii ay dacwaddu socotay laakiin waxaa dalka ay si qarsoodiya uga baxday daqiiqadii u dambaysay. markii la akhrinayay go'aanka oo hore dib loogu dhigay ayaa xaakimku waxa uu sheegay in qofka dacwaysanaha ah uu iska dhiga tiray caddaymo la xidhiira sida aysan sharciga u waafaqsanayn isku day la doonayay in looga sii iibiyo Shiinaha bariiska dheeraadka ku ah walow uu qirtay inay tallaabo ficil ah qaaday oo ay isku dayday inay xakamayso qiimaha xaddaafka ah ee barnaamijkeeda xagga bariiska. arrintaas waa mid qancin doonta dadka aadka u dhalila Miss Yingluck oo muddo dheer ku doodayay in barnaamijka xukuumaddeeda ee udanaynta danyarta uu noqday mid laaluushayay codbixiyayaasha saboolka ah wax loogu yeeray siyaasad musuq ku salaysan. sidaasoo ay tahay go'aanka ma uusan ahayn tusaale adag oo dembiile kaga dhigaya ra'iisul wasaaradda siyaasad udubdhaxaad u ahayd bayaankii ay doorashada ku gashay. ma jirin wax sheegaya in iyada qudheeda ay ku lug lahayd wax musuq maasuq ah. taageerayaasheedu waxa ay dacwadda u arkaan hannaan uu militarigu ku wiiqi karo hogaamiyaha xisbiga ugu caansan ka hor intaan dib loo soo celin waxuun xukuumad ah oo leh qaab dimuqraadi ah. Faarax Lamaane aad buu u mahadsan yahay. wararka inoo soo socda waxaa ka mid ah wasaaradda ganacsiga ee Maraykanka oo xukun ka dhana ku riday shirkadda diyaaradaha ee waddankaasi Canada. balse markan ciyaarihii Cabdirasaaq baa istuudahay la fadhiyay. Cabdirasaaq wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha. ciyaaro fara badan baa xalay dhacay waxa weeyaan ciyaaraha Yurub ay leeyihiin ee kuwa horyaalka ah. tiimka ciyaaraha waxaa ka mid ahaa Manchester City oo la ciyaartay Shakhtar Donetsk 2 gool bay ku badiyeen. goolasha mid waxa u dhaliyay Sterling oo dhawaanta goolal badan dhalinayay. Bernard Silva to Raheem Sterling who seals the deal in off the underside of the crossbar. 2-1 ayaa ay ku badiyeen iyadoo ay la ciyaareen Shakhtar Donetsk oo ah wadankaasi Ruushka. Seville oo wadanka Spain ayaa Maribor ka badisay 3 gool iyo waxba ay kaga badiyeen. Spartak Moscow ayaa waxay la ciyaareen Liverpool oo garoonka la isugu tagay magaalada Moscow. Liverpool aad bay ciyaarteedu u wanaagsaneyd xalay sidii bariyahanba ciyaarteedu u wanaagsan oo had iyo jeer ay garaacayaan goolasha dadka ka soo horjeeda aanay haddana goolal badan dhalinayn. iyagaa lagaga horreeyey gool dambe markaasi dhaliyeen 1-1 bay ku dhammaatay. weli waxaa la leeyahay Liverpool waxbaa malaha ka khaldan.
tiimka napoli waxay la ciyaareen feyenoord oo iyaguna ah waddankaasi holand 3-1 ayay napoli ku badisay. bashiktaas ayaa waxay iyaguna ka badiyeen leipzig oo jarmala 2-0 bay kaga badiyeen. monaco oo ah tiimamka waaweyn ee faransiiska u ciyaara ayaa waxa ay la ciyaareen porto oo bortugiisa si lama filaana iyadoo lagu ciyaaray garoonka monaco 3-0 ayay porto ku badisay. borussia dortmund waxay la ciyaartay real madrid halkaasoo 3-1 real madrid ay ku badisay. ciyaaraha caawa dhici doona qudhood xiisay leeyihiin. basel waxay la ciyaaraysaa benfica, csk moscow waxay la ciyaareen manchester united, psg waxay la ciyaareen bayern munchen waa ciyaar aad iyo aad u weyn. anderlecht iyo celtic, garabakh iyo roma. atletico madrid waxay la ciyaareen iyaguna chelsea, juventus iyo olympiacos. lisbonna waxay la ciyaaraysaa barcelona. mahadsanid cabdirasaaq, aad iyo aad baad umahadsan tahay wararkaasi ciyaaraha ee aadna la socodsiinaysay. wasaaradda ganacsiga ee maraykanka ayaa waxa ay riday xukun ka dhan ah shirkadda diyaaradaha kanada ee lagu magacaabo bombardier, taas oo muran dhanka ganacsiga ah uu kala dhexeeyo shirkadda ay tartamaan ee maraykanka laga leeyahay ee boyn. go-aankan ayaa waxaa haddaba ka dhalanaya in diyaarad kasta oo ay bombardier ay soo saarto maraykanka loo iibgeeyo la saari doono canshuur dheeraad ah oo boqolkiiba 220. wariyaha b b c da samiira xuseen ayaa faahfaahinta warkan ka soo dirtay magaalada new york, waxaana soo jiidinaya maxamed maxamuud cadde. go'aankan wasaaradda ganacsiga ee dalka maraykanka ayaa macnihiisu waxa uu yahay in lagu soo rogi doono 220 boqolkiiba canshuur ah diyaaradaha qaar oo ay samayso shirkadda bombardier marka ay soo gaaraan waddanka maraykanka. waxaa jira cabsi laga qabo inay arrintaasi carqaladayso dalab ay samaysatay shirkadda diyaaradaha ee dalka maraykanka ee layidhaahdo dalta oo dalbatay 125 diyaaradood oo ay shirkaddaasi samayso. wasaaradda ganacsiga dalka maraykanka ayaa canshuur xoog leh saartay shirkaddaasi diyaaradaha ay samayso oo tirsigoodu yahay c. arrintaana waxay la xidhiirtaa muran ay shirkaddaasi la wadaagto shirkad kale oo diyaaradaha samaysa oo layidhahdo boing. hayley don oo ka tirsan shirkadda bombardier. shaki kuma jiro in diyaaradda rakaabka qaadeen nooca c series ay muhiim u tahay mustaqbalkeenna. baalayaasha diyaaradda waxaynu ku soo casriyeynay kuna horumarinay magaalada belfast. diyaaraddan c series waa mid casri ah, maalgashiganna waa mid mustaqbalkeenna ah. marka mashruucan c series waxa uu halis gelinayaa mustaqbalkeenna halkan belfast. heshiiskan ayaa lacagta lagu qiimeeyey waxa ay gaaraysaa $5.6 bilyan oo dolar. kii lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha dalkan britain theresa may ayaa arrintan muranka la soo qaaday madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha waddanka canada justin trudeau. shirkadda bombardier ayaa ah shirkadda ugu weyn ee shaqaalaysa dadka ku nool waqooyiga ireland. go'aankan ayaa waxaa laga yaabaa inuu dhibaato ku keeno 4,100 qof oo shirkadda u shaqeeya. bombardier ayaa laga yaabaa inay go'aanka maraykanka ka qaadato racfaan. maxamed maxamuud cadde aad buu mahadsan yahay. b b c da ayaa fursad u heshay inay ogaato sida ay u shaqayso kooxda boko xaraam oo ah koox aan aad u isticmaalin internetka. waxaana arrintaasi sahlay shakhsi ka tirsanaan jiray kooxdani oo b b c da uga sheekeeyey xaaladda kooxdan. waxa uuna weeraradii ugu dambeeyey ay markaasi ka geysatay waqooyiga waddanka nigeria uu ku tilmaamay weeraro nafla caarinimo ah. wariyaha b b c da stephen hegati ayaa booqday waqooyiga nigeria. warbixintan ayuuna ka soo diray, waxaa soo jeedinaya ciise xaaji cabdulle. halkani waa mayduguri, waa magaalo xudun u ah dagaalka ka dhan ah boko xaraam. ka hor intaan laga saarin boko xaraam magaaladan waxay u geysatay burbur xooggan. haatanna waxaa waddooyinkan soo buuxdhaafiyey bajaajta. waxaan halkani u nimid inaan la kulanno qof aan fursad naadir ah ku helnay. waa nin xubin ka ahaa kooxda boko xaraam. si aan qoyskiisa u badbaadinona waxaan ugu yeeraynaa maxamed. saaxiibkay ayaa baaskiilkiisa igu qaaday qori ayuu i siiyey. waan ogsoonaa inuu ka mid yahay boko xaraam. ma aanan doonayn inaan raaco, laakiin jid kale iima furnayn. waxaan ogsoonaa inuu i dilayo. maxamed waxa uu hadda ku jiraa gacanta militariga. waxa uu isu soo dhiibay bil ka hor kadib markii uu ka soo baxsaday meel ay isku qaranayeen kooxdaasi ee ku taalla kaynta sambisa. waxa uu la joogay muddo 3 sana, waxauna ka qayb qaatay ku dhowaad 6 dagaal. maxamed waxa uu boko xaraam ku biiray 3 sano ka hor isagoo ku sugnaa magaalada uu ka soo jeeda ee banki.
mar aan magaalo qabsannay ayaa amiirkii duulaanka hogaaminayay waxa uu noqday hogaamiyaha magaaladaas dadka guryahooda ayay ku jireen innaguna guriguri ayaan u gelaynay waxaanan kala soo baxaynay dumarka ragga qaarkood waa ay carareen haddii aannu aragno qof xubin ka ah ilaalada deegaanka waan dilaynay si aan kala sooc lahayn ayaan u tooganaynay maba garan karo inta aan dilay wuxuu magaaladaasi ku lahaa dukaan yar oo lagu iibiyo laguna hagaajiyo telefoonnada gacanta hase haatee bil kadib markii ururkaasi ku biiray magaalada ayaa laga saaray oo waxay u carareen kaynta Sambisa. geedo badan ayay meeshu lahayd waxaan guryo ka samaysannay jiingado ilaa 500 ayaa ku yaalay xeradiiba xero kastana magaalo magaceed ayaa loo bixiyey waxaan tiriyey ilaa 12 xero maalmo kooban kadib maxamed waxaa loo magacaabay inuu ilaalo gaar ah u noqdo mid ka mid ah abbaanduulayaasha sarsare ee Boko Haram waxa uuna aad u dhexgalay arrimaha hoose ee Boko Haram wuxuu inoo sheegay in askarta caadiga ah ee Boko Haram aysan weligood la kulmin hogaamiyahooda Abubakar Shekau balse waxa uu sheegay in Shekau uu soo diri jiray qaar ka mid ah ilaaladiisa si ay amar u siiyaan taliyaasha kooxda Boko Haram maxamed ayaa mar kale loo xilsaaray inuu ilaalo u noqdo bahyarta abbaanduulaha Aisha oo aan ahayn magaceeda saxda ah taliyaha waxa uu i baray sida wax loo joogto laakiin kuma aanan faraxsanayn dhowr jeer ayaan isku dayay in aan cararo kadib markaa wixii ka dambeeyay waxa uu igu daray ilaaladiisa balse Aisha ayaa wax ka duwan ragga ilaalin jiray ku aragtay maxamed waxayna sheegtay inuu ahaa nin wanaagsan oo naxariis badan waxay bilaabeen inay qorsheeyaan sidii u baxsan lahaayeen balse maxamed ayaa si aad ah u baqayay wuxuu maxamed aaminsanaa in haddii ay isu dhiibaan militariga ay la kulmi doonaan ciqaab adag hase yeeshee Aisha ayaa BBC laanta hawsa ka dhageysatay in cafis loo fidinayo dadka ka soo goosta Boko Haram mid ka mid ah habeenadaasina Aisha iyo maxamed way baxsadeen si wanaagsan ayaan kaynta u garanay Mama Nuur waxa uu ahaa sarkaal sare oo ka mid ah dadkii asaasay kooxdaasi horaan waxay ahaayeen dad aad u nidaamsan balse sida uu Mama Nuur uga soo baxay dad badan oo kale ayaa ka soo tagay sida uu maxamedna sheegayo goosashadiisana waxay ahayd mid uu kaga biyadiidaya fikradaha qaldan ee kala aragtida ah Mama Nuur ma jeclayn in Shekau uu dumarku adeegsanayay inuu bom ku rakibo waxa uu rabay inaan la dagaalana ciidanka Nigeria oo kaliya ma uusan doonaynin in la dhibaateeyo dadka caadiga ah habeenkii ay Boko Haram ka soo cararayeen maxamed iyo Aisha kaligood ma ahayn markaan xabsiga militariga Nigeria ku boqday waxaa la joogay wiil yar oo qurux badan oo indho yara weyn leh waxa uuna ka soo raacay kaynta Sambisa Aisha wiilka yar magaciisa ma garanayso balse waxay xusuusnayd wejigiisa inta aysan ku biirin Boko Haram ayay hooyadiis la kulantay hadda ka hor intii aynu sheekaysanaynay Aisha iyo maxamed waxay kar kala socdeen xaaladda wiilkan yar waa qoys aanan waxba ka dhaxaynin balse waxaa isu keenay dhibaatada ay la kulmeen codkaasina waxaa uu dambeeyey warbixintii wariyaha BBC-da Stephen Hagati ay inoo diyaarisay qaxootiga ka cararaya weerarada islaamiyiinta ee waqooyiga Nigeria ee u gudbaya dalka dariska la ah ee Cameroon ayaa hadda waxa ay wajahayaan in goobihii ay deganaayeen xoog looga saaro sida ay soo warinayso hay'adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch qaxootiga ka soo qaxaya weerarada ay wadaan kooxaha islaamiyiinta ee waqooyi bari Nigeria ee ka tallaabaya xadka Nigeria uu la wadaaga Cameroon ayaa hadda wajahayo barakac wadareed sida ay sheegtay hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch hay-addan u dooda xuquuqda aadanaha ayaa qiyaasaysa in mas-uuliyiinta Cameroon ay masaafuriyeen ku dhawaad 100,000 oo qof oo magangelya doona hay-adda ayaa sidoo kale ciidamada Cameroon ku eedeysay inay tacadiyo jirdilah u geysteen qaxootiga iyo sidoo kale xadgudubyo dhanka galamada ah Human Rights Watch ayaa sheegaysaa in iyadoo Cameroon ay xaq u leedahay inay xakamayso dadka ajaanibta ee dalkeeda ku nool ay haddana hay-addu waxay sheegtay ay xanibtay dadka u qalmo in ay qaataan magangelyo 10,000 oo qaxootiga ayaa hadda ku nool xeryo amnigooda sugnayn iyo deegaano ku yaala gobolka Nigeria ee Borno kuwaasoo xaaladoodu caafimaad ay aad u xun tahay iyadoo dumarka iyo gabdhahana loo geysto xadgudubyo dhanka galmada ah gobolkan ayaa la kulmay xaalad colaadeed ee u dhaxeeya ciidamada militariga Nigeria iyo dagaalyahanada mintadiinta Boko Haram colaadaas oo hay-addu u dooda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch loo yaqaano ay ku tilmaamtay inay ku barakaceen ku dhawaad 2 milyan oo qof
ciise xaaji cabdulle aad buu ugu mahadsan yahay warbixintaasi uu inoo soo jeedinayay guud ahaan barnaamijkeennii dunida iyo maanta ee markaasi ay isku soo dibariday naciime maxamuud anigoo aadan saalamiinana idiin soo jeedinaya warkana uu inoo akhrinayay cabdirasaaq xaaji maxamed siraad tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo